محمد عبد الله فرماجو ayaa maanta kulan la qaatay madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ku sugan magaalada Muqdisho. Kulanka oo ka dhacay xeyndaabka garoonka Aadan Cadde gaar ahaan halka loo yaqaano Airport Hotel ayaa yimid kadib markii Farmaajo uu booqasho ugu tagay Axmed Madoobe iyo Saciid Deni oo haatan ka wada kulamo siyaasadeed caasimada. Kulankan waxaa ka soo muuqday xubno ka mid ah kooxda Olaha Farmaajo oo uu ku jiro gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo xubno kale kuwaas oo qayb ka ah dhaqdhaqaaqyada socda. Ujeedka kulanka dhex maray Farmaajo iyo Saciid Deni iyo Axmed Madoobe oo dhinac ah ayaa waxa uu ahaa mid ku saabsan salaan iyo kala warqaadasho. waxaana sidoo kale kulanka uu qayb ka ahaa shirar waaweyn oo haatan ka socda caasimada gaar ahaan xerada Xalane kaas oo diiradda lagu saarayo khilaafka ka taagan dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ah. kulanka kadib madaxweyne Farmaajo oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo imaanshaha labada madaxweyne ee Muqdisho isagoo ku dhiirigeliyay dadaalada ku aadan sidii loo gaari lahaa heshiis loo dhan yahay oo dalka looga badbaadin lahaa hubanti la'aan iyo qalalaase amni oo ka dhasha khilaafka la xiriira doorashada iyo dastuurka. waxaan ku bogaadinayaa labada madaxweyne niyad samida iyo doonistooda ku aadan in la gaaro xal waara oo loo dhan yahay. haddaba si aan loo dayacin fursadda wadahadalka waxaan madaxweyne xasan sheekh ugu baaqayaa inuu la yimaado tanaasul iyo hogaamin loogu gudbi karo ismarin waaga taagan dalkana looga badbaadin lahaa firaaq dastuuri ah. ugu dambeyn madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ku baaqay in xaaladaha siyaasadeed ee cakiran ee dalka ka jira aysan mashquulin gurmadka shacabka Soomaaliyeed ay saameeyeen abaarta daba dheeraatay lana muujiyo tallaabooyin cadcad oo wax ku ool ah si loo badbaadiyo nolosha dadka tabaalaysan. wararka ayaa intaa ku daraya in Farmaajo Saciid Deni iyo Axmed Madoobe inta uu socday kulankooda ay isaga garaabeen khilaafkii iyo madmadowgii soo kala dhex galay intii talada dalka uu hayay madaxweyne Farmaajo oo dhinacyada ay galeen dagaal siyaasadeed oo aad u adkaa kaas oo ugu dambeyn sababay in ay talada dalka ka tuuraan Farmaajo. madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa hore kulamo isxigxigay ula yeeshay madasha samata bixinta Soomaaliyeed oo ay qayb ka yihiin kuwaas oo iyagana looga hadlay wada hadallada la filayo inay yeeshaan filla Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka. sidoo kale waxaa xalay xeyndaabka Xalane galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo isna booqasho ugu tagay Axmed Madoobe iyo Saciid Deni isagoo kala hadlay diyaar garowga shirka guud ee loo ballansan yahay. si kastaba ha ahaatee madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa hore u xaqiijiyay inaysan magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ka tagi doonin ilaa heshiis buuxa laga gaaro arrimaha lagu muransan yahay iyagoo uu baaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu si dhab ah u wajaho wada hadallada loo ballansan yahay. xubnaha golaha mustaqbalka ayaa sidoo kale cadeeyay in dalka uu u baahan yahay badbaado iyo in heshiis laga gaaro hanaanka doorashada xilli bilooyin kooban ay ka harsan yihiin muddo xileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.